isbitaalka Jaalasiyaad oo ka mid ah isbitaalada ugu horeeya dalkeena dhanka daryeelka caafimaadka iyo adeegida bulshada Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay wax ka qabashada kiiska gabar 15 jir ah oo tan iyo markii ay dhalatay la dhibanayd isku kaadinta habeenkii. Dr. Cabdulcasiis Cabdulqaadir oo Dr. Fatxi ku magac dheer waa dhakhtarka ku guuleystay wax ka qabashada xaaladda caafimaad ee gabadhan 15 jirka ah. Waxa uu ka warbixinayaa sida uu ula tacaalay xaaladda gabadhan iyo si guud arintan isku kaadinta habeenkii sida dad badan oo bulshadana ka tirsan ay ula dhibtoonayaan isla markaana aysan ku dhiiran karin in ay dhaqaatiirta la wadaagaan. Dr. Xuseen Cabdulcasiis Cabdulqaadir Dr. Fatxi jooga isbitaalka Jaalasiyaad. inta badan waxaan soo bandhigaa xaaladihii ugu adkaay ee dalka. Isleeyahay waxaad u haysaan daawooyin gaar ah iyo baaritaan u gaar ah. waxaan hadda idiin soo bandhigayaa keeskan ama bukaankan markhaatiga nool ah. runtii ilmaha habeenkii isku kaadiya waaye cudurkan. gabar Soomaaliyeed oo da'deeda 15 jir ah oo xilliga mustaqbal guri dhisida joogto oo isku kaadinayso. runtii sida waalidka ay noo xaqiijiyeen ama dokumentiyada ama baaritaanada aan aragnayna ay isbitaallo aad u tiro badan oo ay tiradoodu 10 kor u dhaafaysa ay geysay. qarash aad u tiro badan oo ka baxay ay tiri isbitaal walba oo la furo inaan geeyo ay go'aankayga ahay. markayna soo booqatay moralkeeda wuxuu ahayd adduunyada nolosheeda waxaa iga dhimanay tiri gabadheedoonan kaadinaynin inaan arko. habeen hadday seexato ayadoon kaadin ay soo toosto subaxda adduunyada laga kaxeeyo waa diyaarano hay tiri. marka nasiib wanaag maantay bisha labaad u dhamaatay keeska waxa u dibdhigayna waxay ahayd kalsoonida maamada iyo moralkeeda intuu la ekaay. sababtoo maalintii daawada loo bilaabay daawadeeda kaadida way ka istaagtay. marka ikhtiyaar bal fiiri ihtimaal intaas la eg inaan dawo intaas la eg aan keesaas u adag inaan habeenkii koowaad ilaahay xalkeeda nagu guuleeyo wax aad runtii loo booriyo waaye. mushkiladda marka waxaan rabnaa waalidka Soomaaliyeed inaan gaarsiino anug walba oo isku kaadiya oo waalidkiis la nool maxaa lagu sameeyaa waa la dilaa. hurdada habeenkii 3 mar 4 mar laga kiciyaa. anuga marka uu isla hadlaan ilmihii kan la dhashay wuxuu ku caynaa naga tago isku kaadilooyo joodaga banaanka loo bixinayo wax walba ee qorraxda loo dhigayo wuu dhibsanaa. ilmaha qaar bacay bambiirminta loo dhigay bacdi qabataa. dhibaatada intaas la eg ee anuga maskaxiyan iyo jir ahaanba u dhaawacayso waxaa ku filan system cusub iyo daawo cusub hadda aan u keenay anagoo reer Jaalasiyaad runtii khaasatan anigoo Dr. Fatxi ah oo qaybtaasi daryeel iyo waqti badan geliyay muddana ku mashquulsanaa in daawooyin noocaas oo kale dalka la keeno. horena keesas kuwan ka badan waa idin loo wadaago kuwa kale waa soo wadnaa. waxaan idin leenahay marka hooyo anugaada inaad habeenkii 3 mar ka toosiso maskaxdiisa ay dhaawacdaa. dhafarka habeenkii xanuuno badan uu leeyahay. sidoo kaleento ilmaha uu ku dhex jiray caynaayo ma dhex geli karo wuxuu noqonayaa social community inaan ku dhex jiri karin oo marka dambe gooni u baxo. hadduu gooni u baxo marka dambe inuu isla hadlaa laga yaabaa ilaa xitaa inuu isdilu gaari karo canuga. sababtoo xanuunada maskaxiyanka qaar kamid oo isu dilo waxay ka yimaadaan inuu qofkii social withdrawal uu ka noqdo. social withdrawal maxaa waaye inuu qofka bulshadii uu ka dhex baxo oo gooni u istaago. marka social withdrawal waxa keeni karo in bulshadii ay kugu caynayaan. marka qof walba waxaad u maleynaysaa inuu ku ogyahay adiga intii ku taqaan markii xaafadda gudaheeda lagu wacayo ilmo walba isla dhashay way isdagaalaan way kaftamaan way caytamaan. laakiin kuwa kullu markay marar badan kugu caaya marka dambe ayaad ka dhax bixi ay markaad ka dhax baadaan maskaxiin canugaas u dhaa qatar wuxuu ugu jiraa canugaas inuu istilo ama garaac ama dil ama hurdada ka kici. daawo yar oo aan u keenay ayaa kifaaya ku ah. daawada noocyo badan ay leedahay canug markii la baaro mid ku haboon ayaa la siinayaa hadduu ilaahay raadi insha Allah. Jaalasiyaad Specialist Hospital oo hore idin la wadaagay keeskan iyo keesas kaleento oo kuwa dalka ugu adkaaya wali fari kama qodno waqtiga uu jiray iyo waqtiga waxa uu soo bandhigay. waxaan diyaar u nahay xaalad kasta inaan xoog ugu badan waqtiga ugu badan aan gelin ayadoon qarash saas u badan oo ka bixin bukaanku. hooyada dhashay gabadha xaaladeeda lagula tacaalay isbitaalka Jaalasiyaad ayaa sheegtay in ay aad u faraxsan tahay maadaama tan iyo 2 bilood ee u dambeysay oo ah markii gabadheeda daawada loo bilaabay in aysan habeenna isku kaadin taasoo iyada
iyo gabadheedaba farxad iyo reyn u ah. xanuunkan u imaado waa kaada baxsad 15 sano aan dhakhtarana geynin male dhakhtar xamar waa ka qulustay marka dambe jaalisiyaad isbitaalkana Dr. Fadxi aan u keenay alxamdulillah waa ku guuleystay 2 bilood ka horan keenay ma sha Allah waxaan 15 sano aan xal u waayay xalan oo hela dil waa ku dil iyo ilmo iyo in la dilo iyo in la garaaciyo gabadheeda maalin walba lagu caynay wala dhahay qofkii la hadlaba balaayay ka isku kaadisa naga aamus alxamdulillah ilaahay mahadiiso waa ma sha Allah isbitaal badan aan geeyay waxba ka dareemi waayay waxaan keenay isbitaalka jaalisiyaad aan keenay Dr. Fadxi aan u keenay iskoontii la ii sameeyay daawooyin oo igu qoray alxamdulillah habeenkii koowaad ee kaada baxsadka iga fiicnaatay gabadheeda 2 bilood hadda cunaysa ma sha Allah way fiican tahay marka ilmaha la dilaayo ilmaha la canaanay waxa waa cudur ilaahay keenay caafimaadkiisa nin walba dhakhtarkii ilaahay calafkaaga dhigo cunuguna kugu caafimaada ma sha Allah marka waxaan leeyahay ilmaha dilka laga daayo canaanta laga daayo gabadheeda faquuqay ku noqotay waxaan leeyahay adoo maalin walba kaadinay naga aamus 15 sano ay jirtaa alxamdulillah hadda ma sha Allah way fiican tahay faquuqina hadda waaba ka haray ma sha Allah ilaahay khayr ha siiyo Dr. Fadxi. xaaladda isku kaadinta habeenkii ee caruurta garaadsatay iyo dadka waaweyn ayaa ah mid si weyn u jirta haddana in badan oo dadka kamid ah ay qarsadaan iyaga oo ceebsanaya in ay dhakhaatiirta hor dhigaan arintooda. isbitaalka jaalisiyaad ayaa horay ula tacaalay alla fadligiisna ku guuleystay kiisas in badan lagu xallin waayay isbitaallo kale oo gudaha ah. isbitaalku waxa uu ka kooban yahay qaybo kala duwan halkaas oo ay joogaan dhakhaatiir takhasusi ah isla markaana adeegsanaya qalab caafimaad oo casri ah iyo dawo tayadeedii la hubiyay.